kulan wacan daawade waa mar kale iyo xogta qarsoon muuqaalkana waxaan kaga hadli doonaa xogta ninka muqdisho ka geysan jiray dhaca cajiibka ee dumarka lagu qiyaamayo warbixintiisa guud taariikhdiisa iyo maxkamadda ciidamada oo maanta xukunta ayaa warbixintani kusoo koobaya haddii ay tahay markii ugu horreysay muuqaalkayga kusoo gaaro magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxmed wixii bixisii joogisba ay ku furan tahay balse waxaan ka codsan lahaa inaad ila joogto subscribe channel-ka saarto markana kani waa Cabdifataax Cali Cumar waxa uu ahaa ninka taatikada ugu badan ku dhici jiray dumarka Soomaaliyeed. Cabdifataax waxa uu ahaa macallin dhiga maadooyinka culuumta sharciga Islaamka isagoo ku noolaa dalka Kenya muddo dheer. Waxbarashadiisa ayuu ku qaatay Gaarisa isagoo halkaas jaamacad ka dhiganaya sidoo kalena ka ahaa imaam masaajid. halkaan ka tagay 2008 halkaan ka tagay xamar qaxootigaan tagay 3 sano aan joogo qaxootiga ardayaan ahaa markii macadkii dhamaadeen jaamacadan raadsido meel Gaarisa lahaan u gudbay magaalo weyn ah jaamacad laga helo oo diini ah jaamacadii aan bilaabano jaamacadii marka wadaan waxaan noqday imaam iyo macallin aan noqday macallin madraso dugsi quraan ah iyo galin dambana waxaan dhigay maadooyinkan oo muxuu la afcariga ku baxo oo shariicada Cabdifataax waxa uu ka sheekeynayaa xiriirkii dhawaa ee dhaxmaray isagay rag ka tirsan al-shabaab. maalina markii niman shabaab kamid ah oo markii wareysiga la sheegay wuxuu yiri Gaaris waxaan qaban jiray shabaab meeshii ugu dhaweedaan sheega marka niman ii yimid waxay dhaheen niyahow qof macquul ah tahay meeshaasna waa joogtaa waxaan rabaa inaan xiriir kula sameeyno. sanadihii 2008 iyo 2009 ayuu galay si halkaas isagoo markii dambana kaga sii fakaday sabab la xiriirta in loo ciqaabo weerar ay geysteen rag al-shabaab ah oo isaga ay saaxiibo ahaayeen. marka Nairobi anoo dhowr muddo joog 9 bilood aduu sanad ku dhow anin kale dir oo saaxiibana asna macallin ahaa la qabtay markii la qabtay nin aad isku wacnana uu ah oo xiriir muxuu ah naga dhaxeeyo asna waa tashkiilin jiro oo dhigi jiro waxaan meel qaldana taagantihiin ictisaamkiina nimankeena soo raaca anna waxaan dhigi jiray shabaabkiina meel cilada taagantii annaga soo raaca dad isku gambado ma ahayn masaajid waan kala lahayn islamadu ku jirna xataa maalintii la qabtay marka wadankaas sirdoonkiisu waa sirdoon aad u horeeyo waxaan iri marka khadar yuusan ku galaafsanin daraadeed aan aniga xaq ugu soo tagay halkan waxay tan iyo markii uu yimid Muqdisho 2015 ayaa waxa uu ahaa macallin dhiga culuumta diinta Islaamka balse wax badan ayaa isbedelay. Cabdifataax muuqiisa qurxoonaana waxa uu kaga faa'iideystay inuu ku dhaco dumarka. waxa isweydiinaysaa daawada sidoo ku keenay dhaca cajiibka ee ninkan caanka ka noqday guud ahaan gayiga Soomaaliya isaga bal hay noo sharaxo Cabdifataax sidoo uu ku bartay dhacan cajiibka ee magaalada uu ku maray jiray. aan dib iiga iimaanaynin waxaan rabaa horta wax qarsoon ma jiro wax cadeynta runta aan ka sheego haddana rag badan oo shaleemo soo gali jiray ama guriyooda ka fiirsada waa joogaan filimkan waa la heli karaa saddex nimo tooraka ah saddexdan in dad hubaysan ma ahan dawladdiina waxay ka qaataan muxuu ahaaye baad iyo muxuu ahaaye sheeg bahalaha socdo marka filimku wuxuu ku saabsan yahay saddex toor aan hubaysnayn daarta magacadan sheega ya Seef Cali Qaan iyo Usubuuka ka kala ma aqaan laakiin saddexda waa heli kartiin macna saddexda ninba macna si company marka haddana waa gudoomiye waa daawan kartaa waa dib waa u baari kartaa. Cabdifataax waxa uu ka sheekeynayaa qaabka uu dadka xatooyada ugu sameyn jiro oo ay qayb ka tahay mobilkaaga ii dhiib qof ayaan ka wacaya iyo kaartooyin kale balse midda ugu dhibka badan waxa ay ahayd inuu istaago mid ka mid ah hoteelada wadada Maka al-Mukarrama isagoo qofka inuu wacayo iska dhigaya kuna tilmaamaya in guriyaha qurxoon ee wadadaas uu ku jiro qofkaas durba waad aaminaysaaba waxaana u dhiibaysaa taleefankaada balse isaga shirqool kale ayuu watay. maya qofkii socdo qofkii inuu socdo inaan weydiiyo macnaha meesha uu socdo xagee rabtaa xagga ma rabtaa dhankaas ma rabtaa hore u sii qaad markaas kabacdi marka qofkii aan dib u geysan hubna aan ula soo bixin inaan dhaho qofka lambarkaaga ii sheeg telefoonka markuu dhiibo marka aan gaariga dhaqaajiyo mid kale oo xatooyinkiisii cajiibka ahaa waxa ay tahay wuxuu xitaa ku dhici jiray saaxiibadiis uma aanu aabayeeli jirin dadka la socda oo asxaabta yihiin isagoo kaarta kaga dhigan jiray wifi-ga ayaan ku soo gelinayaa mar kale ha ka sheekeeyo dhacdadaas kale oo cajiibka ah. maya
qaar waxaa jiro oo hoteelo ah ya maya dadaan isbaranno isballaminay oo aan xiriir naga dhexeeyey kabacdi markaan meesha wada tagna markii inaan qofkii aan dhaho telefoonkaagii bal intii wax naloo keenaya adeega muxuu aan ku dadaahno telefoonkii dib qofkii inaan dhaho ama qof aan ka waco ama kadibna aan saas uga tago. cabdifataax kaartooyinka uu dumarka ku dhici jiray waxaa ka mid ahayd walaashay ayaa kula jin ah sidaas oo kale ila soo cabir dhar aan walaashay rabo inaan u dhiibo markaad soo raacdana waxa uu ka qaadan jiray moobeelkii alaabtii oo dhan sabab la xiriirta marka carwada la galo in qofku uu isku jimeeyo dharka gudaha uu galo qaybta jimeynta dharka inta halkaas ay gabadha ku maqan tahayna cabdifataax waxa uu qaadan jiray boorsada iyo moobeelada gabadha la socota xilligaas. okay iyo carwo macnaha waxaa jiro meelaha dharka lagu gado kale in aan dadkiisa la tagno qofkii marka inuu dhar isku cabiro dharkii uu gashto kabacdi markii intuu gashana aan ka tago. carwada waxay leedahay meel lagu labisto oo miraayada oo qofku markuu dhar gashanayo uu isku fiiriyo marka qofku inuu sayskiisa cabirkiisa yahay dharka soo iskugu fiiriyo daraadeed markuu gudaha gala marka aan alaabtii wuxuu ii diibna aan tartiib aan kala tago. 30 Juun ayay booliska Soomaaliya gacanta ku soo dhigeen isagoo ku jira falxatooya guud ahaan wixii xilligaas ka dambeeyay argagax badan ay ka qaadeen shacabka Muqdisho. Cabdifataax oo uu ahaa macallin ugu dambeyntii raggan dhaca jiibka geysan jiray waxay maanta xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida Nuur Cali Xasan kaliya waa caawiya Cabdifataax isagoo sahlaya inuu iibgeeyo moobeelada uu ka xadayay dadka. fadhiyo kala duwan kadib Cabdifataax Ali Cumar ayaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidan ah halka Nuur Cali Xasan lagu xukumay 2 sano sidoo sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. Cabdifataax dumar badani ayaa maxkamadda u soo buuxdaafiyay si ay u dhageystaan dacwadihiisa maalmihii ay socotay waxaana xusid mudan inuu qortay kaliya 30 moobeel inuu dumarka ka dhacay balse waxa uu dhacay in ka badan 60 moobeel. sidoo kalena Cabdifataax intuu ku xirnaa CID hay'adda dambi baarista waxa uu sameeyay mid ka mid ah falalkii cajiibka ku riday guud ahaan dadka halkaas ku sugnaa isagoo dumar u yimid saraakiilna wata kuwaas oo ku dacwoonaya inuu dhacay balse markii dambena xaqiiqdu uu ka soo saaray moobeelkiisa sabab xiriirta in dumarkaas uu shukaansan jiray taas oo keentay in xitaa dumarkii goobtaas lagu furo. Cabdifataax ayaa waxa uu noqday mid ka mid ah ragga saameynta ku reeba sanadan guud ahaan Muqdisho waxaana kaartooyinkiisa cajiibka ah uu ka keenay aflaanta Hindiga oo badsaday. daawade muuqaalkii koobnaana waa naga intaas nabadgelyo.